gudida wanaag farista iyo xumaan reebista 26 Juun iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda Xawaadle ayaa deeq iska soo ururiyeen oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan gurmadka iyo taakuleynta loogu jiro dadka ay abaaruhu saameeyeen waxa ay ku wareejiyeen gudida heer qaran ee abaaraha ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Bare Carab Cabdilaahi oo ah gudoomiyaha 26 Juun ee gudida wanaag farista iyo xumaan reebista waxaana uu ka waramay deeqdan ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha إلهي سبحانه وتعالى وحينو كان المدركي نغو آدو ليدنا انت باقي نغا دمنا إلهي بان تبارك وتعالى كسوغينا halkan maanta waxaan ku wareejinaynaa anagoo gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista degmada 26 Juun waxaan joognaa xarunta gudiga abaaraha taakuleynta abaaraha waxaan ku wareejinaynaa laba gaari oo isugu jira raashin iyo dhar noocyadiisa kala duwan waxa ku jira agabka guryaha lagu isticmaalo alaabada noocyada kala duwan waxa ku jira dhar dumar waxa ku jira dhar caruureed waxa ku jira dhar rag waxa ku jira firaashyo waxa ku jira gooyaal waxa ku jira ay nooc alaabada la isticmaalo oo dhan waxa ku deeqay dad walaalo ah oo aad iyo aad u khayr badan dadkeena dad wanaagsan weeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxna la istari karnaa aad baynu wax isku qaban karnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiinaynaa kuwii bixiyay in uu barako u geliyo ka soo saaraan u barakeeyo miisaanka xasanaadkana ugu daro inaguna waxaan leenahay ilaahay weydiisanaynaa inuu abaarta inaga jabiyo geesta kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay odayaasha xaafadda Xawaadle mas'uuliyiin ka tirsan garabka haweenka ee xisbiga kulmiye waxaana ay dhamaantood ka warameen inay muhiim tahay in laga wada qayb qaato taakuleynta dadka ay abaaruhu saameeyeen wixii magaranaysaa samafalka ninkii ka qayb qaata oo waxa ilaahay xaqiisa magaranaysaa uu ku helayo aakhiro iyo adduunyada marka waxaanu si aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gurmadka dadkii ka qayb qaatay in ilaahay miisaadka xasanaadka ugu daro waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadweynihii faraha badnaa ee xaafadda 26 Juun qayb u bixiyeen laakiin intani waa xaafadii Xawaadle ee xisbiga kulmiye oo gartay in dadkooda walaalaha ah ay taageeraan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xaafadda 26 Juun oo gobolka Maroodi Jeex khaasatan Hargeysa ka soo baxday oo ay tahay markii saddexaad ee ay 26 Juun iyagoo alaabta la sida alaab la mid bixiyaan waxa weeyaan 26 xaafadaha kale ee hareeraha ka xigana waxaanu leenahay 26 Juun ku dayda maanta alaabta la sida waa alaab aad u tiro badan Xawaadle gudaheedu kaliya laga soo guray xaafadihii kale waa diyaar iyaga ayaa wada diyaariyo qolo waliba dhinaceeda looga soo qaadaya waxaanu mahadnaqaynaa culimada daashay ee dadka ku qaylisay ee soo guratiri ee ilaahay ku soo asturay ee soo qaaday iyo dadka isxilqaamay ee dadkooda la qaybsaday dhibaatooyinka iyo abaarahana Allah inaga soo furto maqaalifana Allah ina siiyo umadeennana Allah isku sakhiro inta fadhidana ilaahay inta taagan ee baradeedii ka kacday dhibta ku dhacday tii ka caawisa Allah ka dhigo